kulanka halkan ka dhacay ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qurba joogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo safaaradda Itoobiya ay ku leedahay dalkan Australia. maanta oo aan halkan isugu nimid shir ay soo wada abaabuleen jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo safaaradda Itoobiya kaasoo looga hadlayay in ay ka faa'iideystaan dhismaha ay dowladdu ay dhisayso guryaha si dadka qurbaha ku nool loo siiyo guryo si ay isaga bixiyaan si maaragtay tartiib muddo ilaa 10 sano ilaa 15 sano. waxaana ujeedada ugu weyn kulankan uu ahaa maalgashi jaaliyaduhu loo soo bandhigay inay maalgashtaan dalka Itoobiya guud ahaan. runtii hadaan nahay dadka Soomaalida deegaanka inaan investmentiga aan ka qayb galno oo maartay la arko dhaqdhaqaaqa iyo mataqaanaa iyo horumarka deegaankeena iyo meel kastaba in la arko aad bay wanaagsan waxaan diyaar u nahayna inaan arrintaas aan xoojino oo aan dadka deegaanka asalkooda yaani ku tirsado ku abtirsado inay mataqaanaa ay wax ka qayb ka qaataan. anigoo magacaygu yahay Khadra Aadan Nibcaale waxaan halkan dawladda Itoobiya iyo dawlad deegaanka Itoobiya ku hambalyeynaya soo dhaweynta iyo ka warqabka sanadkii hore dhamaadkiisina waan tagay Arsaba waan tagay Jigjiga waan tagay waan soo arkay wadankii waana ku farxay haddana waxaan rabaa inaan maal gashado inaan aado inaan wax ka noqdo baan rabaa. waxa kale oo maanta halkan iyadana opportunity badan oo dadka loogu talagalay qurba joogta hortanada laga akhriyay iyagana aanu si fiican ama si waadixa looga sheegay in aanu taageerno investmentiga ama maalgelinta dalka Itoobiya lagu sameeyo. safiir ku-xigeenka dawladda Itoobiya u fadhiya dalka Australia ayaa kala qayb galay jaaliyadda waxaan hadaladiisa kamid ahaa በቀጥታ ካለው አቅምና ችሎታ አንፃር ደግሞ ቀጥታ መንግስት የሚፈልገው ከሆነ ቀጥታ መንግስት ያለ ውድድር ወደ ስራው ሊያስገባው ይችላል። diasporagu ay investment gashada wadankooda oo maanta halkan laga soo jeediyay waa arrin aad u wanaagsan in dadku dhaqaalihiisa wadankiisa gashado shaqo abuur sameeyo laakiin wax walba saldhig waxa waa nabad. annagu waxaan halka soo wadnaa waxa weey waa horumar waxaanu hiigsanayna waa horumar idinkaanu ka rabnaa ma garanaysaa mar walba talaabadiina waxa ay tahay baanu qaadaynaa. waxa kale oo halkan hambalyo uga dirayaa nabadgelyada iyo shirka ka socda Casbuli beelweynta nabadgelyada qodobada ka soo baxana waxaan waan fulinaynaa shirkana waa hambalyeynaya. waxaan oran lahaa dadka ka soo jeeda dawlad deegaanka waxa habboon waliba khaasatan Soomaalida in ay ka qayb qaataan oo ay noqdaan kuwii ka mid dhaliya ayna noqonin kuwa gaar mar walba iska dhigay laakiin ay noqdaan ceelka dadka kooda cabayaan inaad gacanta kula jirto. waxaan halkan aan oga baaqayaa dhammaan dadka ku nool dowladda deegaanka Soomaalida dhammaan inay ka shaqeeyaan sidii ay horumarka iyo nabadgelyada ay u adkeyn lahaayeen. xukuumadana waxaan baaq aan u jeedinayaa in dadka dowladda deegaanka ku nool ay oga shaqeyso horumarkooda iyo nabadgelyadooda. maalgashigan guud ahaan dalka Itoobiya ay iclaamisay ayaa waxaa qayb ka ah maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida oo horey madaxweyne Cabdi Cumar uu sheegay in jaaliyaduhu ay maalgashtaan deegaamadooda. Brian Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.